warbixinta qaybteedii oo la soo koobay waxaana la socda markii laga tago shantaas bag waxaa la socda 108 bag oo daatadii dadka laga soo aruuriyay haddii la yiraahdo dukumentigaas oo dhameystiranna guddi howleedka iyo guddiga farsamo ayaa idin la wadaagi doona mudanayaal iyo marweyn mudana madaxweyne halkaas anagoo ka sii wadanayna waxaan rabaa inaan haddana u gudbo qaybihii kale ee warka waxaan rabaa inaan hadalka siiyo Batuule Sheekh Axmed oo u hadlaysa ururka magaca haweenka order sorry point of order waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo socodka ka yaraanaya midnimada Soomaaliyeed waa muqadas weeye shir loo dhayaha loo baahan yahay oo ummadda Soomaaliyeed kullee ku dhantahay waa ma gobolada hadalkeeda waxa weeye shir loo dhayahay oo dadka Soomaaliyeed miiraas gambooni ilaa mataqaano iyo cadad degan ay u dhayihiin halka lagu qabto weeye waxa la soo celiyay shirki lagu qaban jiray mataqaano imbigaati oo kale oo la yiri ergada kama soo qayb gali karaan ka dagaalanay weeyad mise la soo celiyo waxa weeyaan ka fiirsano in lagu xadgudbin qarannimada ummadda Soomaaliyeed dam dalka laga gelin dad badan oo kumayaal malaayiin gaaraya oo reer waqooyi ayaa diyaar waxay yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed oo shirka ay ka qayb galaan xaq u leh annana waxaan leenahay mataqaana miiraas gambooni ilaa mataqaana iyo raas xasay waxaan maqlaynaa waqooyi Soomaaliland iyo Soomaaliya war Soomaaliland maxay waxaanu maqlaynaa dadka af Soomaaliya ku hadla shirkan xaraan weeyo in uu kala taga ay Soomaaliya soo dhameeyay noqoto ma xildhibaanka ra'yigiisa xaq u leeyahay waa maasin ma raali aad xildhibaanada annaga joogno waqooyi annaga ka joogno waan hadlaynaa hadalkayga la nagama qaadi karo shirka Soomaalida halkan xataa 13 gobol ee koonfureed kamay wada muuqan codkayagii aanu 1500 intaanu daalay isugu geynay City Plaza halkan lagama sheegin waa la qariyay waxa loo qariyay ma garanayno waddankani inay kolba qolo doorasho gashana ma suuroobayso waanu dalku mar kaliya qaabooyinkii koonfur baan horta buuxinaynaa nadhaha waanu maqli karnaa wax codaho aanu dhageysan karno Shariif Xasan maan ka maqlayn inta kale raas casay raas kambooni bay ahayd aniga odaygoodiyo halkan jooga galabta warcadna dhaha waanu ka baxaynaa dantaanu idinku qabnaha la arkay kuwii xagga waan soo diidnay midnimadaanu ku diidnay oo ay diideen idinkana maanta war baanu idinka rabnaa cad beenbeen iyo midmadow ma soconayo Soomaalida waxa weeye shantii gobol ee waqooyi iyo 3 koonfur oo nin laga yar hadliyay markii dambe codkoodii iyo wixii ay ka yiraahdeen iyo wada tashigii lama soo sheegin hidden agenda jira